aqalka Kremlin-ka ee looga arrimiyo dalka Ruushka ayaa sheegay in xukuumadda Moscow ay doonayso inay sii horumariyaan iskaashiga kala dhaxeeya Kuuriyada Waqooyi iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee labada dawladood la filayo inay yeeshaan kulan foolka-fool ah kadib socdaal rasmi ah ee wasiirka arrimaha dibadda ee Pyongyang. Waqooyiga Kuuriya waa dariskeena ugu dhow bahwadaagteena kaas oo aan horumarinayno oo aan ku tala jirno inaan sii anba qaadno iskaashiga dhinacyada oo dhan ayuu yiri afhayeenka Kremlin-ka Dmitry Peskov isaga oo warfidiyaanada shir saxaafadeed u qabtay. Waxa uu ka hadlayay kulanka soo socda ee u dhaxeeya wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo dhigiisa booqdaha ah ee Chu Song-hu. afhayeen Peskov wuxuu sheegay in Moscow ay rajaynayso wadaxaajood wanaagsan dhaxalgal ah oo miro dhal ah. Peskov ayaa tilmaamay in wadahadalka Ruushka uu la yeelanayo Kuuriyada Waqooyi uu sii socon doono ilaa heer walba isaga oo intaas ku daray in madaxweyne Vladimir Putin uu casuumaad u haysto booqasho uu ku gaaro Pyongyang mustaqbalka. Waxaan rajaynaynaa in booqashadan oo kale ay dhacdo in madaxweynaha Ruushka uu booqan doono Kuuriyada Waqooyi mustaqbalka dhow. waqtiga booqashada noocan oo kale ah waxa la isla meel dhigi doonaa iyada oo loo marayo dariiqad diblomaasiyadeed ayuu hadalkiisa sii raaciyay. mar wax laga weydiiyay kulanka suurtagalka ah ee dhex mari kara Putin iyo Chu waxa uu Peskov meesha ka saarin gabi ahaanba jiritaankiisa laakiin haddana ma carabaabin. Ruushka ayaa sare u qaaday xiriirka uu la leeyahay Kuuriyada Waqooyi tan iyo markii uu bilaabay howlgalkiisa military ee gaarka ah ee uu ka wada Ukraine. Horaantii bishan Mareykanka waxa uu sheegay in Ruushka uu adeegsaday gantaalada ballistiga iyo gantaalaha fogaan gaarka ah oo ay siisay Kuuriyada Waqooyi si Moscow ugu xoojiso dagaalka ay ku hayso Kiev. Moscow iyo Pyongyang waxay labaduba beeniyeen heshiisyada hubka laakiin waxa ay sheegeen inay sii xoojin doonaan iskaashigooda. Saraakiisha ayaa qabtay shirar badan oo heer sare ah tan iyo sanadkii hore kaas oo uu ku jiro fadhigii u dhaxeeyay Putin iyo Kim Jong-un. labaduba waxa ay leeyihiin cadow ay isku aragti ka yihiin nacabkaasina waxa ugu tun weyn Mareykanka. xiriirka Mareykanka iyo Ruushka ayaa haatan maraya heerkii ugu xumaa ee soo mara tan iyo 1985 wax loogu yeeray faragelinta Moscow ee doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ee sanadkii 2016 iyo wax u muuqda isku dayeeda joogtada ah ay ku doonayso inay saameyn ku yeelato xaaladda gudaha ee Washington ayaa ka dhigtay Ruushka awood sumaysan oo iska caabisa marna ku duusha Mareykanka. laakiin gardarada Mareykanka ee ah in ku darshashada jasiirad lamoodka Crimea iyo bilowga dagaalka ee koonfurta bari ee Ukraine oo lagu daray taageerada Suuriya ee Bashar al-Assad ee dagaalka sukeeye iyo gacansiinta Ruushka ee Venezuela siiba Nicolas Maduro waxay kor u qaadaysaa xiisadda labada dhinac. istaraatiijiyadda amniga qaranka ee Mareykanka waxay mar ku dhawaaqday in Ruushku yahay khatarta ugu sarreysa ee amniga dalkeeda laakiin waxa la fahamsan yahay in labaduba isku hayaan dana ka baxsan qadiyada wadamadooda iyaga oo mid kasta doonayo in ay sarreyso saameyntiisa uu ku leeyahay adduunka siiba gobolka bariga dhexe. Kuuriyada Waqooyi mas'uuliyiintoodu faahfaahin badan kama bixin booqashada uu wasiirkooda dibadda ku jooga Moscow laakiin sida la sii og yahay aragti midaysan ayay leeyihiin labada dhinac. aqalka Kremlin-ka ee looga arrimiyo dalka Ruushka ayaa sheegay in xukuumadda Moscow ay doonayso inay sii horumariyaan iskaashiga kala dhaxeeya Kuuriyada Waqooyi iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee labada dawladood la filayo inay yeeshaan kulan foolka-fool ah kadib socdaal rasmi ah ee wasiirka arrimaha dibadda ee Pyongyang. Waqooyiga Kuuriya waa dariskeena ugu dhow bahwadaagteena kaas oo aan horumarinayno oo aan ku tala jirno inaan sii anba qaadno iskaashiga dhinacyada oo dhan ayuu yiri afhayeenka Kremlin-ka Dmitry Peskov isaga oo warfidiyaanada shir saxaafadeed u qabtay. waxa uu ka hadlayay kulanka soo socda ee u dhaxeeya wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo dhigiisa booqdaha ah ee Chu Song-hu. afhayeen Peskov wuxuu sheegay in Moscow ay rajaynayso wadaxaajood wanaagsan dhaxalgal ah oo miro dhal ah. Peskov ayaa tilmaamay in wadahadalka Ruushka uu la yeelanayo Kuuriyada Waqooyi uu sii socon doono ilaa heer walba isaga oo intaas ku daray in madaxweyne Vladimir Putin uu casuumaad u haysto booqasho uu ku gaaro Pyongyang mustaqbalka. waxaan rajaynaynaa in booqashadan oo kale ay dhacdo in madaxweynaha Ruushka uu booqan doono Kuuriyada Waqooyi mustaqbalka dhow. waqtiga booqashada noocan oo kale ah waxa la isla meel dhigi doonaa iyada oo loo marayo dariiqad diblomaasiyadeed ayuu hadalkiisa sii raaciyay. mar wax laga weydiiyay kulanka suurtagalka ah ee dhex mari kara Putin iyo Chu waxa uu Peskov meesha ka saarin gabi ahaanba jiritaankiisa laakiin haddana ma carabaabin.
ruushka ayaa sare u qaaday xiriirka uu la leeyahay kuuriyada waqooyi tan iyo markii uu bilaabay howlgalkiisa military ee gaarka ah ee uu ka wado Ukraine. horaantii bishan Mareykanka waxa uu sheegay in ruushka uu adeegsaday gantaalada ballistiga iyo gantaalaha fogaan gaarka ah oo ay siisay kuuriyada waqooyi si Moscow ugu xoojiso dagaalka ay ku hayso Kiev. Moscow iyo Pyongyang waxay labaduba beeniyeen heshiisyada hubka, laakiin waxa ay sheegeen inay sii xoojin doonaan iskaashigooda. saraakiisha ayaa qabtay shirar badan oo heer sare ah tan iyo sanadkii hore, kaas oo uu ku jiro fadhigii u dhaxeeyay Putin iyo Kim Jong Un. labaduba waxa ay leeyihiin cadow ay isku aragti ka yihiin, nacabkaasina waxa ugu tun weyn Mareykanka. xiriirka Mareykanka iyo Ruushka ayaa haatan maraya heerkii ugu xumaa ee soo mara tan iyo 1985. waxa loogu yeeray faragelinta Moscow ee doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ee sanadkii 2016 iyo wax u muuqda isku dayeeda joogtada ah ay ku doonayso inay saameyn ku yeelato xaaladda gudaha ee Washington ayaa ka dhigtay Ruushka awood sumaysan oo iska caabisa marna ku duusha Mareykanka. laakiin gardarada Mareykanka ee ah in ku darsashada jasiirad lamoodka Crimea iyo bilowga dagaalka ee koonfurta bari ee Ukraine oo lagu daray taageerada Suuriya ee Bashar al-Assad ee dagaalka sukeeye iyo gacansiinta Ruushka ee Venezuela siiba Nicolas Maduro waxay kor u qaadaysaa xiisadda labada dhinac. istaraatiijiyadda amniga qaranka ee Mareykanka waxay mar ku dhawaaqday in Ruushku yahay khatarta ugu sarreysa ee amniga dalkeeda, laakiin waxa la fahamsan yahay in labaduba isku hayaan dana ka baxsan qadiyadda wadamadooda, iyaga oo mid kasta doonayo in ay sarreyso saameyntiisa uu ku leeyahay adduunka siiba gobolka bariga dhexe. kuuriyada waqooyi mas'uuliyiintoodu faahfaahin badan kama bixin booqashada uu wasiirkooda dibadda ku jooga Moscow, laakiin sida la sii og yahay aragti midaysan ayay leeyihiin labada dhinac. macluumaadka ka soo kordha booqashadan waxaad kala socon doontaan barteennan T15 Media. inta ka horeysana waxaan idinku dhaafaynaa nabad iyo warsan.